السلام عليكم kusoo dhawaada kanaalka socdaalka dunida iyo muuqaal cusub muuqaalkan aynu ku eegi doono xigmadihii ugu waaweynaa ee uu lahaa ninka la yiraahdo Robert Mugabe waa socdaalka dunida waxa ku dhownahay socdaalka dunida beeshka socdaalka dunida hadda waxay naga daawaneysaan socdaalka dunida maxamed shoo dhacdigna sidoo kale ku ambaleynaya 10k aa gaartay ama 10,000 aa gaartay ka badan ku rajeynayna insha Allah 100k iyo 1 milyan ka badan ku rajeynayna inaa gaartid marka waxa ku leenahay keep going dabcan marka hore hadaan Robert Mugabe faalayar ka bixino Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii dalka Zimbabwe isagoo goor dhaweyd dhintay balse wuxuu ka tagay erayo waaweyn ama hadal xigmadeed waaweyn qaar dhalinyaradu ay u isticmaasho baraha bulshada hadaladii ugu waaweynaa uu ka tagay waxaa kamid ah brada ku degdegin in aad jacayl la sameyso gabar marka hore saaxiib la noqo waxa dhici karta in ay leedahay saaxiibo ka qurxoon iyada gabadha saaxiib la noqon buu ku leeyahay waxa laga yaabaa iyada inay gabar ka qurxan ay saaxiib la tahay marka fursada dambe haska beerdareen mar hadii aad maaragtay gabadhan ee saaxiibadeed ay ku barto ceeb ay kugu tahay macnaha ayadoo saaxiib la tahay inay saaxiibteed aad ku daydo okay xigmad labaad uu soo jeedinayo waxa ay tahay hadii aad gabar jeclaato orod u sheego ha sugin in ay soo dhigto sawirkeeda kadibna aad dhahdo wow walaalkay adiga ma tihid amiin ambulance leeyahay gabadha hadii aad jeclaato u sheego xogaa labadii hadalkii hore hadalkan xogaa yar waa siyara diidayaan hadii aad jeclaato u sheego brada adiga ma tihid ku leeyahay ambulance wow ha u qorin hadalka kale oo soo jeediyay waxay tahay Robert Mugabe hadii adiga oo shalay bartay maanta ay ku soo wacdo kuna dhahdo $5 oo aan indhakul soo iibsado soo dir walaalkii carar oo naftaada la carar hadii ay indhakul $5 joogto bal qiyaas dirac iyo kabo inta ay joogi karaan indhakush yareedo maaragtay $1 joogay hadii ay ku tiraa $5 soo tuuro indhakula bal qiyaas diracii 10 20 joogay inta uu joogi karo ayada agteeda halkuu ka joogi karo inay $100 soo tuur ku dhahda laga yaabaa ay ku tiraa maaragtay dirac baan soo iibsanayaa marka walaalkay carar oo naftaada la carar buu ku leeyahay xigmadda saddexaad wuxuu leeyahay wiil aan adeer u ahay ayaa i weydiiyay sababta ay ragga xaasaska leh ee mushkiladaha ula wadaagaynin xaasaskooda waxaan u sheegay kulaha in ay adag tahay in dhibka malaariyada xalkeeda la weydiiyo kaneecada wuxuu ku leeyahay mushkilada maaragtay malaariyada asalkeedu waxa keenta kaneecada sida la wada ogyahay marka mushkiladaha ragga haysto waxay ugu imaadeen dumarka ay qabaan kaneecadu iyo maaragtay malaariyadana la isku makal xal weydiiyo ee ayaga ayaa mushkilada isku keena leeyahay Robert Mugabe sida ay taageerayaasha Man United uga aamusan yihiin baraha bulshada markaan fiiriyay waxaan u maleeyay kulaha inay qorsheynayaan inay Messi afduubaan Robert markaan wuxuu galay taageerayaasha Man United oo anigu aan kamid ahay wuxuu leeyahay baraha bulshada waxa ugu aamusantiin sidii dad Messi afduubaraba camal macnaha Messi wuxuu si aad u daran macnaha u galay Man United isagoo ka reebo 2 finaal oo gool ka dhaliyay oo 2 finaal Champions League dabcan xiliyadaas ayuu xigmadaas dhaxayaan filayaa hadii ay awoodaan inay afduubaan kulanka ka hor ay afduubi lahaayeen okay mid shanaad wuxuu leeyahay Robert Mugabe si kasta oo aad u hadasho qof ay hareerihiisa joogaan jaamiciin faqiir ah iyo dambiilayaal lacag haysto kaama dhageysanayo in waxbarashadu ay tahay furaha guusha markaan ardayda iyo bahdi waxbarashadu galay wuxuu leeyahay si kasta oo aad u hadasho qofka ay hareerihiisa joogaan jaamiciin faqiir ah in dambiilayaal lacag haysta marnaba kaama dhageysanayo in waxbarashadu tahay furaha guusha dabcan hantidu iyo maaragtay lacag haysashadu Ilaahay waafajiyo dambiiluhu heli karaa ma u dhaco ma si kale ku helo jaamiciguna fursadu waa siday u soo marto mooy shaqo soo marta wuxuu milkiyadiisa leeyahay soo marto hadii uu gaariga cabaar ku dhex daaho kadib marka uu shaqada ka soo laabto walaashay wuxuu tirinayaa mas'uuliyadii marnaba fursad hasiin oo fal dambiyeedka ku dhex qabo
wuxuu la hadlayaa gabadhuu la hadlayaa haddii uu saaxiibka macnaha shaqada markuu ka yimaado gaariga uu ku dhex daaho oo hore kasoo degin wuxuu tirinayaa camal maseejyadii. dabcan waxyaabo badan oo qofka tiri karaa wuxuu leeyahay bal faldambiyeedka ku dhex qabo fursadda siin. dab ayaa daartay Mugabe markaas dowladda ayaa soo saartay buu leeyahay sharci sheegaya in gabar kasta iyo wiil kasta oo qurux badan laga qaadi doono canshuurta quruxda. maxaa qurux badnaata darteeda canshuur la iskaga qaadaya? waan kuu jeedaa waad qoslaysaa sababtoo ah uu leeyahay waad ka badbaaday in canshuurtaas laga qaado. waad fahantay oo ku raaciyay. dabcan sababta laga qaadayna waxay tahay aad baad u fool xuntaa buu ku qarinayaa ileen dadkii qorxanaa un baa canshuurta laga qaadaya. waxaad gabar kasta oo aad Facebook ku aragto weydiisaa lambarkeeda walaalow ma waxaad diiwaan gelinaysaa simkaaryada gabdhaha. brada hal qof ka diiwaan gasho camal oo karabaano brada hal qof ka diiwaan gasho halkaas qof ku dhamaaw. laakiin mid walba hadaad weydiisid adiga macnaha diiwaan gelin ma wadaa oo gabdhaha dhankooda buu ku leeyahay. lama helaayo gabar 6 pack gaari ama baabuur ku leeyahay ka dooranaysa 6 muruq oo caloosha 6 pack macnaha 6 gaari iyo maaragtay iyo 6 pack in la soo barbar dhigo gabar oo 6 pack dooranaysa ma jirto. walaalow shaqayso jimkan wax tari maayo ku leeyahay. brada 6 gaari shaqayso ku leeyahay 6 pack intaad hool gali lahayd. okay in aad maalin kasta hal dhar le soo xiratid waxay cadeyn u tahay in aad tahay milkiilaha dharkaas oo aysan tobol lahayn. wuxuu kala jeedaa dabcan dharkaas adiga iskale inaad leedahay baana cadeysay ma tihid qof maaragtay dharka soo kala bedelanayo marba qof hebel ka soo qaadayo mar Cumar ka soo qaadayo mar Faarax ka soo qaadayo ma tihid halkaaga dhar baad ku taagantaa milkiilahooda baana tahay ku soco buu ku leeyahay. midda u dambaysin kusoo gabagabeynayno waxay leedahay xigmad inaan u dhiman doono horay ayaan u sheegay buu leeyahay Mugabe balse dadka doonaya in ay akhristaan xigmadahayga waxaan la wadaagayaa inay iska daayaan. dadka xigmadahayga akhri doono inay iska daayaan la wadaagayaa ama ay iska yareeyaan akhriskooda ama xoogaa xataa iska yareeyaan kulaha waayo aniga ayaa qoristooda u dhintay adinka akhrintooda ha u dhimanina. aniga macnaha qoristooda iyo waqtiga ay galay iyo u dhintay adinka akhrintooda ha u dhimanin oo leeyahay. kolay wad baad u dhimatay Mugabe xigmad maadan la dhiman. dabcan wuxuu leeyahay xoogaa yarafaan baa ka muuqda aniga baa xigmad la dhintay adinka akhrinteeda ha la dhimanina buu idin leeyahay oo idin dardaarmaya ama wana wada dardaarmaya Robert Mugabe. haddaba muuqaalkeeni halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Robert Mugabe sharaxaad kooban iyo xigmadihiisiiba halkaas inaad kaga bogateen ayaan jeclahay. waa tan iyo muuqaal dambe iyo halkaan oo ah socdaalka dunida iyo adinkoo subscribe wada saara muuqaalka oo aad like gareysaan wada socod wanaagsan.